Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba ku soo dhowaada qeybtii 16aad ee buugga sheeko-faneedda ah ee Saxarla ee uu qoray Faarax Maxamuud. Qeybta 16aad ee buugguna waxa ay ku bilaabmaysaa sida tan. Goor galab ah ayaa Cadar xabsiga laga sii daayay. Waxaa ka muuqday rafaad, daal iyo hurdo la'aan. Waxay ahayd markii ugu horreysay ee weligeed la xidhay, waxayna dareemaysay in nolosheedii iyo sumcaddeediiba baaba'een. Markay iyada iyo Xamdi Gaaba xabsigii ka soo baxeen, waxaa bannaanka ku sugaya Xaaji Duwane oo tagsi uu soo kiraystay kursiga hore fadhiya. Waxay Cadar iyo Xamdi fadhiisteen kursigii dambe ee tagsiga, iyaga oo aan midkoodna kelmad odhan. Markii uu tagsigii dhaqaaqayna, Xamdi ayaa waxay ka codsatay Cadar in marka hore iyada gurigeedii lagu dejiyo. Markii ay gurigii Xamdi Gaaba gaadheenna, wax kale iska daaye may odhan soo dega oo shaah caba. Markay Cadar gurigeedii gaadhay, iyada oo aan qofna afkaas uga juuqin ayay gashay qolkeedii oo hoosta ka xidhatay. Habeenkaas oo dhan hurdo iyo fikir ayay ku jirtay. Maalintii dambe 11kii subaxnimo ayay hurdo ka soo toostay oo intii albaabka soo joogsatay ay Saxarla u yeedhay. Saxarla oo ay filaysay inay jikada ku jirto ayaa u jawaabi weyday. Intay hore u dhaqaaqday ayay jikada gashay, kadibna waxay ka soo noqotay iyada oo soo weyday, iyada oo daaradda dhex taagan oo isweydiinaysa meesha ay ka baxday. Saxarle ayaa albaabka waxaa ka soo galay Dabeeco oo cajalado fiidyow ah oo ay soo ammaanaysatay gacanta midig ku sidata. Waxay weydiisay sababta ay iskuulkii u tegi weyday ee ay saacadaas cajaladaha u sidato. Iyada oo aan kelmad odhan ayay qolkeedii Dabeeca gashay. Cadar oo xanaaqday ayaa qolkii ka daba gashay. Markay cabbaar murmeen ayay u sheegtay Dabeeco in iskuulkii 5 cisho ka hor laga soo eriyay, kadibna ay cid ku celisa weyday. Cadar oo qolkii malyuun ka sii baxaysa ayaa weydiisay, naameeday fadhi xun, quraac hay samayse. Waxay Dabeeco ugu jawaabtay, 4 cishaba ma arkin. Intay qolkii Dabeeca dib ugu noqotay, Cadar Duwane ayay tidhi, 4 cisho ah, naamiyaad waalan tahay, naa xagee ka baxday la xabaashu. Inkasta oo aanay Dabeeca ahayn dadka warku si fudud uga baxo, aakhirtaankii waxay u sheegtay inay dhowr jeer dagaalameen, kadibna ay baxsatay oo aanay war u hayn meeshay aaday. Cadar oo aan kelmad odhan, wejigeedana xanaaq weyni ka muuqda ayaa qolkeedii ku laabatay. Intii Cadar guriga ka maqnayd, wax waliba waa isku yaaceen. Dabeeco oo caruurta guriga joogta ugu weyneydna iska daa waxay sii kala maamushee. Waxay shaqo ka dhigatay inay maalin walba la dagaalanto Saxarla oo ahayd qofka keliya ee hawsha guriga kala wada. Markay Dabeeco hooyadeed u sheegtay inay Saxarle guriga ka tagtayna, talo ayaa Cadar ku caddaatay. Waayo joogitaanka Saxarla waxaa ku xidhnaa wax kasta oo nolosha guriga ku saabsan. Ha ahaato cunto, dhar la maydho, nadiifin, suuka soo adeegis iyo u maydhista caruurtabe. Iska daa cid kale. Waxaa la sheegay in xitaa uu kiilo maalin dhagaxaan u soo gurtay oo la dagaalamay Dabeeco, isagoo ka xanaaqay inay Saxarle erido. Inkasta oo kiilo dulmiga Saxarle dhinaciisa kaga jiray, oo mar uu qaniino iyo mar uu ku qayliyaaba jirtay, haddana Saxarle mar walba waxay ugu jirtay kaalinta hooyadii. Waayo intii Saxarle guriga joogtay, iyada uunbay ahayd tii quudin jirtay, u maydhi jirtay ee seexin jirtay. Cadar wax waliba way iskaga yaaceen. Jahwareer ayaa ku dhacay. Waxay damacday inay saaxiibadaheedu yeedho si ay dhibka iyo murugada ula qaybsadaan. Waxay u wacday mid Caasha Dheer, Aamina Xayeysi, Xaliimo Daahir iyo Xamdi Gaabo. Hase ahaatee midna kama qaban telefoonka. Sidii ay ugu celcelinaysay ayay ku daashay, waxaana u caddaatay inay albaabka ka xidheen. Cadar qof dhibaatada u adkaysi badan ma ahayne. Markii saaxiibadaheedu jawaabi waayeen, waxay wacday dhowr dumar ah oo ay daris ahaayeen, laakiin aan xiriir wanaagsani ka dhaxayn. Waxay u arki jireen naag kibir badan oo lacagta ay haysataa wax weyn la tahay. Dumarkiina intay cabbaar sheekadii ka dhureen ayaa mid waliba wax yar kadib gurigeedii ku noqotay. Kadibna sheekadii iyo dhibaatadii Cadar haysatay magaalada ku faafisay.
intii aanay habeenkii seexan ayaa waxa u yimid Aw Muuse iyo Dalmar, waxayna u sheegeen inay ka tegayaan. Waxay u sheegeen inay muddo 3 bilood ah mushaharkoodii ku leeyihiin oo aanay bilaash ku shaqayn karin. Aw Muuse oo ahaa nin aad u afgaaban aadna isaga ilaalin jiray inay Cadar isku dhacaan ayaa ku yidhi, Cadar, lacagta yar ee aadna siin jirtay carruur ayaanu ku korsanaynay. Haddii aadan haynna sidaas kuma jiri karnee, shaqo ayaanu raadsanaynaa. Cadar intii ay u garaabi lahayd labada nin ee u shaqaynayay, waxay bilowday qaylo iyo inay tidhaahdo waad ii soo tashateen. Waxaanay ballan ku qaaday inaanay lacagta ka maqan siin doonin hadday iska tagaan. Aw Muuse iyo Dalmar murankeedii iyo qayladeedii dhag uma jalaqsiine, albaabka ayay ka baxeen. Cadar oo faankeeda iyo fakfakdeeda xaafadda laga joogi waayey oo had iyo jeer awoodeeda dhaqaale muujin jirtay oo ku faani jirtay, waxay dareentay in cirkii jeex ku soo dhacay. Darawalkiina gaadhigii oo aan shidaal ku jirin ayuu albaabka uga dhaqaaqay. Intii dhaqaalaha badani ku socday, Cadar weligeed iskumay dayin inay barato sida gaadhiga loo wado, waayo umay arkayn inay u baahan tahay ama u baahan doonto. Inkasta oo lacag badani ay soo geli jirtay, Cadar weligeed wax lacag ah ma kaydsan. Wax kale iska daaye, Cali Taakow oo ay dukaankiisa masruuf ka qaadan jirtay ayaa u sheegay inaanu wax kala daymin karin maadaama lacag badan lagu leeyahay. Waxay ka yaraatay bisad, yaxyax iyo ceeb ay dareentay darteed. Dadkii deriska ee ay ku kibri jirtay ayay indhaha siin kari weyday, waxaanay bilowday inaanay haba yaraatee guriga ka soo bixin. Iska daa cid kale, aabbaheed Xaaji Duwane lamay hadal. Albaabka ayay hoosta ka xidhatay, cid kastana xiriirka ayay u goysay. Waxaasoo dhan kaga sii darnaa in Cawaale inta uu telefoon u soo diray ku yidhi, waan ku furaye, ha igu daalin ee dantaada qabso. Xaaladda Cadar ku sugan tahay xaafaddii oo dhan ayay si fiican ugu faaftay. Iska daa cid kale, warkeedii Xaaji Duwane ayuu gaadhay. Xaaji Duwane inkasta oo uu ahaa nin taajira, haddana waxaa lagu xaman jiray inuu aad u gacan adag yahay oo aanu waxba bixin. Inkasta oo uu aad ugu xanaaqsanaa oo aanu la soo hadlin ilaa iyo maalintii ay xabsiga ka soo baxday ee uu gurigeeda keenay, hase ahaatee markii xaaladda inantiisu soo gaadhay waxa uu go'aansaday in uu u tago oo waxa ay ku sugan tahay soo xaqiijiyo. Markuu Xaaji Duwane yimid gurigii Cadar wuu qarracmay. Waxa uu ka yaabay xaalka Cadar iyo gurigeedu ku sugan yihiin. Waxa uu u galay iyada oo dirac keliya gashan oo timaheedii oo aan muddo la feedhin isku yaacsan yihiin. Waxay u ekaatay sidii wax waalan ama qof dib jir ah. Su-aashii ugu horreysay ee ay weydiisay waxay ahayd inuu Cawaale arkay iyo in kale. Waxa maskaxdeeda ka guuxayay ciilka iyo cadhada ay Cawaale u qabtay. Waxa uu Xaaji Duwane u sheegay in aanu arag Cawaale. Markii uu sidaas Xaaji Duwane ku yidhina waxay bilowday baroor iyada oo ku eedeynaysa Xaaji Duwane in uu isagu dhibaatada u keenay kadib markii uu Cawaale u guuriyey. Xaaji Duwane ma ahayn nin calool jilicsan, dhegna uma jalaqsiin baroorteedii. Wuxuu ku yidhi, bakbakda iyo qaylada dhaaf oo reerkaaga maamulo. Wax kasta oo Cawaale kugu sameeyey adiga ayaa ka mas-uul ahaaye. Runta ayuu indhaha ka saaray, laakiin dheg uma jalaqsiin, halkii ayayna baroorteedii ka wadatay. Xaaji Duwane waxa uu caddaatay in gabadhiisu si xun isugu buuqsan tahay oo aanay awoodi karin inay reerkeeda maamusho. Waxa kale oo uu ogaa inaan xaaladdeeda waxba iska bedeli karin ilaa ay dadkii u shaqayn jiray Saxarla, Aw Muuse iyo Dalmar loo soo celiyo. Waxa uu weydiiyey inay garanayso meesha ay degan yihiin. Iyada oo isxanaajinaysa oo muujinaysa inaanay u baahnayn ayay tidhi, ma aqaan, mana raba inaan doonto. Xaaji Duwane oo ahaa nin aan jeexan aqoonaya inta uu albaabkeedii ka baxay ku yidhi, marka aad u baahatay la soo socodsii. Kadibna isaga oo albaabka bannaanka kasii baxaya ayay kasii daba orday Cadar Duwane oo ku tidhi, aabe, ma sidaas ayaad igaga tegaysaa? Waxay ahayd qof had iyo jeer isku dayda inay qariso dhibka haystaa, muujisana awooddeeda dhaqaale. Xaaji Duwanena wuu ku ogaa dabeecaddaas. Sidaas darteed isaga oo aan dheg u dhigin ayuu gaadhigiisii galay.
wuxuu ku tashaday in markay xaqiiqada yaqiinsato ee ay caawimaad u baahato uu markaas xaaladeeda galo. Markii uu dhaqaaqayna intay daaradda fadhiisatay ayay baroor madaxa qabsatay. Qayladeeda waxaa laga maqlayay guryaha deriska ah. Xataa waxaa baroorteedii ku soo baxday dabeeco oo filim Hindi ah oo ay fiirsanaysay ka daawan kari weyday. Waxaa ka soo wareegay 2 cisho markii aabaheed soo booqday. Xaaladeediina inay kasii darta mooyaane kama ay soo rayn. Iyada iyo caruurtii ayaa isku dawaqay kadib markii ay cunto u karin weyday, gurigiina isku dhex yaacay. Iska daa deriskee, tan iyo xaafadda ugu dambaysa ee Kaaraan ayaa sheekadeedii gaadhay. Maadaama dumarka xaafadda aanay badankooda isku fiicnayn, cidi uma soo gurman. Waxaa aakhirkii u timid Cawrala cabsiye oo aanay awalba isku fiicnayn, laakiin ka baqday in xaafaddu sidaas ku ceeboobaysa haddii aan qoftan laga wardoonin. Markay Cawrali gurigii soo gashay way ka yaabtay xaaladda reerku ku sugan yahay. Meel walba waxaa daadsanaa xashiish, wuxuuna gurigii u ekaa meel laga guuray. Waxay garaacday albaabkii Cadar, iyada oo xoog u qaylinaysa ayay tidhi, "Wa-ayo oo na soo doontay." Cawralina iyada oo aan hadalkeedii dheg u dhigin ayaa intay qolkii hore usii gashay ku tidhi, "Naa maxaa saacadaas qolka kugu xidhay oo aad reerkaaga u maamulan la'dahay?" Markay Cawrali gudaha ugu soo gashay ayaa intay kor u booday Cadar duwane ay timaheedii oo isku dhex yaacsan garbasaar ku duubtay. Waxaa dhex martay dood aad u dheer oo ay Cadar isku dayeysay inay xaqiiqada haysato dafirto. Waxay u sheegtay Cawrali inay khalad tahay inay gurigeeda iska soo gasho iyada oo aan idan u haysan. Cawrala cabsiye hadalka ugalama nixin ee sidii xaaji duwane ayay runta indhaha ka saartay. Waxay u sheegtay in haddii aanay xaqiiqada ay ku sugan tahay yaqiinsan, gurigeedu sidaas ku baabaayo. Waxaanay aakhirtaankii ka dhaadhicisay inay aabaheed la hadasho si uu shaqaalihii ugu soo celiyo, kana bixiyo wixii kharash ah. Waxay ku tidhi, "La hadal aabbaha inta aan kula joogo." Cadar oo ahayd qof aad isula qab weyn, may jeclaysan inay aabaheed dad kale hortood ku barido. Kadibna waxay ku tidhi Cawrala, "Aniga ayaa hadhow la hadli doona." Kadibna Cawrala ayaa intay farta indhaha kaga fiiqday Cadar ku tidhi, "Naa welima waxaad iska dhaadhicinaysaa inaad tahay boqorad noloshii Faranjiga ku nool. Naa xaaladaada ilaa afkooya ayaa laga ogyahay, yaqiinsa jabkaaga." Kadib waxay doodoodii hore iyo dib u socotaba. Ugu dambeyntii Cadar waxay wacday aabaheed, waxaanay u sheegtay inay u baahan tahay inuu caawiyo oo uu shaqaalihiina u soo celiyo. Markay xoogaa wada hadlayeenna, Cawrala ayaa intay tilifoonkii Cadar ka qabsatay ku tidhi xaaji duwane, "Si degdeg ah inantaada ugu kaalay, xaaladeedu ma fiicne." Kadibna intay Cawrali gurigeedii qabatay ayay dhowr haweeno oo deriska ah isugu yeedhay, iyada oo xaaladda Cadar uga warantay, kana codsatay inay iska ilaawaan dhaqan xumadeedii hore oo ay caawiyaan. Waxay isu qaybiyeen qaar suuqa uga soo adeega, kuwa guriga u nadiifiya, iyo kuwa raashin u kariya oo guriga ugu geeya. Iyada oo shaqadii guriga ee la kala qaybsaday ay dumarkii dhameeyeen oo weli gurigii Cadar jooga, ayaa salaadii maqrib waxaa albaabka soo garaacay xaaji duwane oo wada oo Muuse iyo Dalmar. Inkasta oo aanay muujin, waxay ahayd farxaddii ugu weyneyd ee baryahaas Cadar soo martaa. Cadar oo aad moodid inay sidii hore dhaanto, xaqiiqadiina ku soo miiraantay ayaa aabaheed qolkeeda ugu yeedhay. Waxaanay u sheegtay in Cawaale soo furay oo aanay wax kale ka rabin ee uu caruurtiisa soo masruufto, una soo celiyo haddii ay la joogto gabadhii ay habaryarta u ahayd ee Saxarli. Waxa uu xaaji duwane ugu jawaabay, "Ha ka warwarin, aniga ayaa biilka ku siinaya. Sida aan warka ku hayana, Saxarli lama joogto Cawaale." Waxa kale oo uu xaajigu sii raaciyay hadalkiisii in haddii ay rabto inay Saxarla sidii hore ula dhaqanto aanay weligeed ku soo noqonayn, isaguna tala ku yeelan doonin soo celinta gabadha uu awowga u yahay. Waxa kale oo uu u sheegay in Saxarli ay hadda tahay gabadh kortay oo shaqaysan karta, oo aanay jirin sabab maalin walba afka looga garaaco oo loo cabiidsado.
waxa kale oo uu u sheegay in isaga laftiisu uu dulmiga wax ku leeyahay oo ay ahayd in uu mar hore Saxarla ka kaxeeyo. Waxay Cadar ka yaabtay sida uu xaajigu ula socdo arrinta Saxarla, waxaanay dhaar ku martay inaanay gacan dambe oo ay leedahay saarayn, si xunna ula dhaqmi doonin haddii ay mar uun u soo noqoto. Xaaji Duwane oo dhoola cadaynaya ayaa inta uu xaggii Cadar eegay ku yidhi, Cadar, jaariyadihii ayaad la heshiin weyday, haddii aad isbedelaysid horta jaariyad ka bilow oo si fiican ula dhaqan, kadibna aynu ka hadalno Saxarla. Waxaana uu kula taliyey in iyada lafteeda ay wax ka khaldan yihiin oo ay u baahan tahay in quraal la saaro. Kadibna inta uu lacag siiyey ayuu xaafadiisii u carraabay, inkasta oo ay Cadar aad ugu faraxday in Aw Muuse iyo Dalmar loo soo celiyo. Waxa aad ugu adkaatay si ay ugu noolaato nolol iyo guri ay Saxarli ka maqan tahay. Waxay bilowday inay hablihii deriska ahaa iyo kuwii jaariyadaha ahaa ee jaarka la joogay ay weydiisay in ay arkeen iyo in kale. Dhammaan hablaha xaafadda deganaa waxay la socdeen sida ay ula dhaqmi jirtay Saxarla, mid walbaana intay kor iyo hoos u eegtay iyada oo aanu jawaabin ayay ka dhaqaaqday. Waxay tagtay iskuulkii ay Saxarli habeenkii tagi jirtay si ay macallimiinta u weydiiso. Waxay macallimiintii u sheegeen inaanay in muddo ah arkin. Ugu dambeyntii waxay u tagtay Keenadiid oo dukaankii Cudbi jooga, waxaanay weydiisay in uu Saxarla arkay iyo in kale. Keenadiid aad iyo aad ayuu u necbaa Cadar maadaama ay Saxarla si xun ula dhaqmi jirtay. Isagoo hawshiisii iska sii wato aan xaggeediiba eegin ayuu ugu jawaabay, maya. Keenadiid waxa uu ahaa qofka keliya ee xaafadda oo dhan og meesha ay Saxarli degan tahay. Waxay shaqo ka heshay reer ay gabadh ay iskuulka wada dhigan jireen u geysay. Waxay ka raysatay dilkii iyo dibindaabyadii ay Cadar Duwane u geysan jirtay. Keenadiid haddii aanay maalintii suuqa isku arkin Saxarla, waxay habeenkii ku kulmi jireen jardiinkii ay hore ugu kulmi jireen. Inkasta oo ay weli da'doodu yarayd oo aanay guur ka wada hadli jirin, haddana waxa maalinba maalinta ka dambaysa sii koraysay kalgacalka iyo xiisaha ay isu qabaan. Maalintii Xaaji Duwane guriga Cadar yimid, waxa ka soo wareegtay 3 usbuuc. Cadar oo ay aad ugu adkaatay maamulka guriga oo Saxarla aad ugu xiistay ayaa gurigii aabahee tagtay. Waxay u sheegtay inay jaariyad fiican weyday, sababtuna aanay ahayn inay si xun ula dhaqanto, laakiin markii ay wax yar xaafadda joogtaba ay ku diraan naagaha derisku. Waxa kale oo ay xaajiga u qiratay inaanay Saxarli la mid ahayn jaariyadaha ee ay ahayd qof guriga kala maamusha. Inkasta oo Xaaji Duwane uu arkay inay Cadar markan daacad ka tahay inay Saxarla si fiican ula dhaqmi doonto, haddana waa ay ku adkaatay in uu aamino. Waxaana uu ku yidhi, Cadarey, inanta yar ee aad habaryarta u tahay, hadda ka hor ayay ku sigatay inay gacantaada ku dhimato, sidaa doonta reerkaaga u maamulo oo faraha ka qaad. Markii ay baroor iyo baryo ka bixi weyday wuxuu ku yidhi, waan kula raadinayaa, laakiin aniga ayay shaqaalay noqonaysaa oo gurigaaga mushahar ku siinaya. Haddii ay maalin keliya kaa soo cabatana, aniga ayaa noqonaya qofka ugu horeeya ee gurigaaga ka kaxeeya. Cadar oo farxaddii ka badatay ayaa intay kacday madaxa iyo labada dhaban ka dhunkatay aabaheed, waxaanay ku tidhi, ballantaada si fiican ayaanu oofinayaa. Waxaa ka soo wareegtay 5 casho markii uu Xaaji Duwane ballan qaaday in uu raadinayo Saxarla. Waxa uu ugu dambeyntii isaga iyo Gaasira soo heleen guriga ay joogto Saxarli. Waxay ku sugeen meel guriga u dhow, ugu dambeyntiina way la kulmeen. Inkasta oo Saxarli ay Cadar Duwane aad u nacbayd, haddana si weyn ayay u ixtiraami jirtay Xaaji Duwane. Markasta oo uu guriga yimaadana iyada ayay ahayd qofkii u adeegi jirtay. Xaaji Duwane way ku adkaatay in uu markiiba Saxarla ku yidhaahdo ama kala hadlay inay gurigii Cadar Duwane ku laabato. Waxa uu ku yidhi, awoowe, waxa aan rabaa inaad gurigayga noo raacdid. Waxay u sheegtay inay maalinta Jimcaha fasax tahay oo ay maalintaas raaci karto. Gaasira oo ogeyd xaalkay Saxarli kaga sugnayd gurigii Cadar Duwane ayaa ku tidhi, maasha Allah, oo maalin dhan ayaaba lagu fasaxay. Saxarli dhowr habeen ma ay seexan,
inkasta oo ay aad u qadariso xaaji duwane haddana waxay aad uga warwarsanayd inuu sheeko ula yimaado oo uu ku yidhaahdo Cadar Duwane ku noqo. waxay xataa dhowr jeer ku fakartay inay odayga u geyso oo ka dhuumato, laakiin waxay istustay inay arrintaas ku ceeboobayso. waxaa la gaadhay maalintii Jimcaha, sidii ballantu ahaydna waxaa soo laabtay xaaji duwane iyo Gaasira. waxay kula kulmeen meeshii ay Saxarle kula kulmeen hadda ka hor. maalintii oo dhan waxba kalama hadlin xaaji duwane Saxarla. habeennimadii ayuu qolka fadhiga ugu yeedhay kalana hadlay arrintii Cadar Duwane. markiiba Saxarle wadnaha ayaa boodbooday markii uu Cadar la soo qaaday. wejigeeda ayaa isbedelay oo murugo hadhaysay. waxaa xaaji duwane iyo Saxarle dhex maray hadal dheer, waxaanu u sheegay inaanay Cadar u shaqayn ee ay isaga u shaqaynayso, mushaharkeedana bixinayo. waxa uu ballan qaaday in haddii mar qura dhibaato loo geysto aanay maalin dheeraad ah la joogayn oo ay gurigiisa ku soo noqonayso. arrintaas ah inay gurigii Cadar ku noqotay way ku adkaatay Saxarla, waxayna ugu dambeyntii ku tidhi, awowe dhibkii iyo dabkii Ilaahay iga soo saaray mar kale ku noqon maayo. xaaji duwane waxa uu ka cabsi qabay in haddii Cadar ay Saxarle weydo gurigeedu sii baaba'ayo. wax kasta ayuu ka fekeray markii uu arkay inay Saxarle iska soo taagtay inay gurigii Cadar Duwane ku noqoto. waxa uu ogaa in uu jiro wiil la dhashay Saxarla, waa Samaale oo ay aad u jeceshahay Saxarle. waxa uu ka ballan qaaday Saxarle in haddii ay ka aqbasho inay gurigii Cadar Duwane ku noqoto uu Samaale cid raadisa u diri doono oo muddo kastaba ha ku qaadatee xamar keeni doono. waxay Saxarle hadda ka hor nafteeda ka ballan qaaday in wax kastaba ha ku qaadatee ay xataa nafteeda u bixinaysay inay walaalkeed Samaale mar uun aragto. Samaale waxa uu ahaa qayb jidhkeeda ka maqan, sidii hooyadoodu dhimatayna war uma hayn waxa uu ku sugan yahay nolol iyo geeritoonna. marka laga reebo Bullo oo u sheegtay inay mar meel ceel ah kula kulantay. ilaa maalintii ay shaqada heshayna lacagta way kaysanaysay si ay ugu safarto si ay walaalkeedu raadiso. inkasta oo aanay Saxarle indhaha siin karin Cadar intay nooshahay, weligeedna ay ku tashatay inaanay xataa aaskeeda tegin, haddana ballanqaadkan xaaji duwane dartiis waxay ku fakartay in ay ku noqoto. xaaji duwane oo ay muddo isku raageen Saxarla, inta uu baryay ayuu inta uu sare kacay uu ku yidhi Saxarla, awowe salaadii cishaha ayaan tukanayaaye ka feker oo beri subaxa haynoo ahaato. subaxdii markii uu soo toosay ayuu xaaji duwane telefoon u diray Cadar Duwane una sheegay inay guriga ugu timaado. xaaji duwane uma sheegin Cadar in Saxarle la joogto. Cadar maadaama aan shaqaale u joogin howlaheeda ayaa aad u badnaa. markaa waxay timid salaadii maqrib kadib. markay Cadar timid waxa uu xaajigu ugu yeedhay qolkii fadhiga oo uu joogay. waxa uu u sheegay in uu soo helay Saxarla, laakiin ay shuruud ku raacayso. mar allaale markii uu yidhi Saxarle ayaan soo helay ayaa intay kor u booday madaxa iyo labada dhabanba ka dhunkatay xaajiga. waxaa dhex maray hadal aad u dheer, waxaana uu u sheegay in Saxarle aanay habeen keliya la joogin haddii iyada iyo caruurteedu dhibaato u geystaan. kadibna Gaasira ayuu u yeedhay oo uu ku yidhi Saxarle igu yeedh. Saxarle oo aad xaragada yaabtid oo gurigii Cadar iyo dhibkiisii ka raysatay ayaa albaabka ka soo gashay. markii Cadar indhaheedu ku dhaceen ayay Saxarle dareentay in wadnaha tumaatii ka wareentay. Cadar ayaa intay soo booday damacday in ay habsiiso. Saxarle oo naxday oo mooday inay dilaysa ayaa albaabka ka booday. xaaji duwane ayaa inta uu ka daba kacay ku yidhi, kaalay awowe ku dili mayse. Cadar oo isku yaxyaxday oo kursigii ay fadhiday ku noqotay ayaa markay Saxarle soo noqotay ku tidhi, habar yar waan dhaartay oo Ilaah ballankiisa ayaan maray inaanan gacan dambe ku saarin hayga baqin. iyadoo hadalka sii wadata Cadar Duwane ayay tidhi, ilaahow aan nolosha ku googo'a inaanan mar dambe gacantayda ku saarayn habo. maadaama aanay Saxarle wax wanaag ah uga baran Cadar, hadda ka horna intay isu bihinbihisay markay rumaysatay dhaawac iyo dhibaato u geysatay, hadalkeedii waxba kamay soo qaadin. xaaji duwane ayaa Cadar ku yidhi, Cadar
waa waqti dambe iska sii soco. Aniga iyo Saxarle weli hadal ayaa isugu kaaya dhimane, anigaana beri toole kula soo hadlaya. Markii Cadar baabuurkeedii gashay ayuu Xaaji Duwane ka daba tegay, una sheegay inay Saxarle qol u diyaariso oo aanay mar dambe jikada seexan. Intay tidhi taas aniga ayaa ballan qaaday ayay dhaqaaqday. Subaxdii markii la qureecday kadib ayuu Xaaji Duwane mar kale u yeedhay Saxarle. Waxa uu u sheegay in isaga iyo Gaasire ay suuqa u kaxaynayaan oo ay dhar u soo iibinayaan. Waxa kale oo uu mar kale kala sii hadlay ku noqoshada guriga Cadar. Waxa uu xaajigu u ballan qaaday Saxarle mar kale in haddii ay dhibaato yar iyada iyo gabadheedu u geystaan ay gurigiisa ku soo noqonayso. Kadibna waxay isu raaceen suuqii Xamarweyne. Waxay suuqa ku maqnaayeen maalinta badankeedii. Kadibna waxay ka soo noqdeen Saxarle oo shandad weyn oo dhar iyo kaba ka buuxaan wadata. Saxarle dharkeedii hore ee ay Cawaale iyo Saafi u soo iibiyeen waxa ka qaaday Dabeeco oo badankiisii gubtay markii ay la dagaalantay. Inkasta oo ay ku faraxsanayd dharka iyo alaabada kale ee loo soo iibiyey, waxay ka warwarsanayd in mar kale laga qaado ama laga gubo. Wax yar salaadii maqrib ka hor ayaa gaadhigii Xaaji Duwane albaabkii Cadar Duwane soo joogsaday. Cadar caruurteedii hore ayay ula sii hadashay, waxaanay u sheegtay in qofkii dhibaato u geysta Saxarle uu guriga ka tegayo. Waxay si gaar ah ula hadashay Dabeeco oo iyadu shaqo ka dhigatay inay maalin walba bilaa micno Saxarle u garaacdo. Markii uu Muuse albaabka ka furay, Cadar iyo caruurteedii oo dhammi waxay tubnaayeen daaradda. Waxa u dhammaaday shirkii gaabnaa ee ay Cadar u qabatay. Ilaa iyo intii Cadar reer waalanka iyo qaylaada iskaga jirtay, reerkeedu wuu iska dayacmay. Gaar ahaan waxaa ka lumay awooddii ay caruurteeda ku xukumi lahayd iyo ixtiraamkii ay u hayeen hooyo ahaan. Waxaanay warwar ka qabtay in Dabeeco camal xumadeedii la soo noqoto oo Saxarle la dagaalanto. Dabeeco oo wixii Cadar u sheegaysay oo dhammi baal ka mareen ayaa Saxarle kor iyo hoos u eegtay oo huruuftay. Waxa aad u dhibayay inay aragto xaragada iyo quruxda ka muuqata Saxarle. Qofka keliya ee ku soo orday ee salaamay waxa uu ahaa Kiilo oo isagu aad ugu xiisay sidii ay wax u tari jirtay. Markay guriga soo galeen Xaaji Duwane iyo Saxarle, waxay u gudbeen qolkii fadhiga. Wax yar kadibna waxaa ka daba galay Cadar oo shaah ay soo karisay sida. Saxarle waxay ogeyd inaanay Cadar muddo aad u dheer shaah iyo cunto toonna karin. Waxay ka fikiraysay sida shaaheedu u dhandhamayo. Markii Xaaji Duwane koob shaaha u shubtayna waxay fadhiisatay kursi wejiga Saxarle ku aadan. Xaaji Duwane ayaa waxa uu bilaabay hadalkii, wuxuuna Cadar u sheegay inaanu jeclayn in uu hadal uu hore u yidhi ku soo qolcoliyo oo ay hadalkoodii hore u dhammaysteen. Waxa uu intaas ku daray inay Cadar fahamto in heshiiska ay wada galeen uu yahay mid kama dambays ah oo haddii ay Cadar jabiso uu Saxarle ka kaxaynayo. Inkasta oo ay Cadar aad uga xumaatay in odaygu inanta yar horteeda ugu hanjabo, haddana waa yahay aabbe ayay ku tidhi. In saacad ka badan markii ay wada hadlayeen ayaa Xaaji Duwane inta uu istaagay yidhi, sidaas ayaa inoo ballan ah. Intii aanu albaabka ka bixin ayuu Saxarle ku yidhi, bil walba aakhirkeeda ayaan mushaharkaaga kuu keenayaa. Aniga iyo adiga ayaynay naga dhaxaysaa, mana rabo in cid kale ogaato. Waxaa ka soo wareegtay bil ilaa iyo maalintii Saxarle guriga ku soo noqotay. Intii ay joogtay maalin keliya ayaa Dabeeco la murantay. Kadibna waxay Cadar ku amartay Saxarle in aanay wax kale iska daayay koob biyo ah siin. Waxay Cadar u sheegtay Dabeeco inaanay Saxarle u shaqayn. Markii ay Dabeeco hooyadeed la murantayna waxay ku amartay inay guriga uga baxdo. Markii ay diiday oo ay caydayna waxay ugu yeedhay booliis. Kadibna waa la xidhay, waxayna xabsi ku jirtay 2 maalmood. Markii Xaaji Duwane bisha dhammaadkeedii mushaharkii u keenay Saxarle, waxa uu weydiiyey in wax dhibaato ah loo geystay iyo in kale Saxarle. Waxaanay u sheegtay in aan wax dhib ah loo geysan. Waxa uu u sheegay Saxarle in mar haddii ay Cadar habaryarnimadii ku tixgelin weyday, ay ogaatay inaad gurigeeda shaqaale ahaan u joogtid oo aan wax kale iyo waalidnimo midna idinka dhaxayn. daawadayaal inta
intaa waxaynu kusoo afmeeri doonaa qeybtii 16aad ee buugga sheekafaneeda ah ee Saxarla ee uu qoray Faarax Maxamuud. qeybta xigta inta aynu isugu imanaynana waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo aragti dambe oo xiiso leh.